daawan kartaan wararka ugu xiisaha badan ee geeska iyo geyiga ay Soomaalidu degto. Qodobada ugu doorka roon wararkaan idin haynana waxaa ka mid ah Mustafe Cagjar oo Ugafay gabdhaha deegaanka Soomaalida oo uu ku sheegay inay wax guursada la yihiin oo ay baarideen kana codsaday ganacsatada Somaliland inay maalgashi guur u yimaadaan. duulaankii Canfartii ku haysay Ciisaha oo weli halkiisii ka sii socda. Safaaradda Maraykanka oo doorashadii Itoobiya xaraan ku tilmaantay. Qodobadan xiisaha badan iyo kuwo kale ayaan idin haynaa ee fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe sar channelka gambaleelkana furo si aad u hesho xogaha ugu dambeeya. share dheh oo la wadaag asxaabtaada xagga hoosena kala bixin ugu reeb. Kusoo dhawaada qodobadii wararkeena oo tafatiran waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Marwe Yusuf. waraysi Mustafe Cagjar waa madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee uu VOA Soomaali ku siiyay Hargeysa ayaa wuxuu ku sheegay in haddii ay ganacsatada Somaliland deegaanka Soomaalida maalgashadaan inay gabdhaha deegaanka guursan lahaayeen taasoo ceeb weyn gaf gadaafayn iyo meel ka dhac ku ah gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ku sugan. isagoo hadalkaasi tilmaamayo inay gabdhaha Soomaaliyeed ee deegaankiisu ay guur la'aan yihiin, baarideen, wax guursadana la yihiin oo ay gayaan ka waayeen ragga deegaanka ku sugan. haddaba ugu horreyn waxaanu xaal iyo xumayn hadalkaas uu madaxweynuhu ugu gafay gabdhaha xurmada naga mudan ka siinaynaa guud ahaan gabdhaha deegaanka Soomaalida ee sharafta iyo sumcadda badan, akhlaaqda wanaagsan, diinta iyo dhaqanka suubanna ay waalidiintood ku soo barbaariyeen. waxaan dhanka kale ku wargelinaynaa madaxweyne Mustafe inuu hadalkaas gafka ah raaligelin saxaafadeed ka bixiyo haddii kale uu gafka iyo gadaafayntaas urakac ugu sameeyey gabdhaha Soomaali galbeed ee wanaagga iyo sharafta ku caanbaxay. dhanka kale waxaan guud ahaan hooyooyinka deegaanka ee dhalay gabdhaha Soomaali galbeed iyo gaar ahaan gabdhaha uu madaxweynahoodu u gafayba u sheegaynaa inay ogaadaan meesha iyo heerka ay Mustafe Cagjar u joogaan, isla markaana ka hadlaan xadgudubka uu u geystay oo ceebta uu dusha ka saaray ee aysan lahayn ay iska qaadaan. haddii kale waxaa dhab noqon waxa uu sheegay. nagayaan baad ka weydeen geyigiina mise waad baarixiyowdeen oo cid idin qabanta ayaad laadihiin. hadalkan gafka ah ee madaxweynaha ka soo yeedhay ee uu gabdhaha Soomaali galbeed ee uu madaxweynaha u yahay ugu gafay ma ahayn mid laga sugayey marnaba loogana fadhiyey. waxayse taasi ku tusaysaa inaysan gabdhaha Soomaali galbeed agtiisa wax qiimo ah ku lahayn. dhanka kale madaxweynuhu ma wuxuu aaminsan yahay inaysan Soomaalida Hargeysa iyo Soomaalida deegaankiisu horay isu guursan jirin? waxaa weli socda duulaankii Canfartii ku haysay shacabka Soomaali galbeed ee galbeedka gobolka City degan. shalay waxay ciidamada Canfarta ee dowladdu weerar ku soo qaadeen shacabka degan tuulada birta dheer oo ku taala gudaha deegaanka Soomaalida ee gobolka City galbeedkiisa. weli nalooma xaqiijinin dhimasho iyo dhaawac iyo wax khasaare ah toona, balse weeraradu waa joogto habeen iyo maalinba. weeraradani ma aha kuwo joogsanaya ee waa kuwo joogto ah oo maalin iyo habeenba Canfartu ku hayso shacabka Soomaaliyeed. waxaa jira kumanaan Soomaali ah oo maati iyo maxas u badan oo la soo qaxiyey, kuwaasoo hantidoodii mood iyo noolba la dhacay, guryahoodiina la gubay, islamarkaana qaarkood dantu dawarsadayaal ka dhigtay kadib markay waayeen wax u arxama. ma jirto dowlad u hadasha dadkan oo dowladdu iyadaaba qayb ka ah dagaalada Canfartu ku soo qaadayso Soomaalida
iyadoo sababtu tahay inay dowladdu ka rartay ciidankii Soomaaliyeed ee aagaas ilaalada shacabka u joogay oo ay shacabkii ku bowqalaashay cadawgooda. waxaa kale oo beesha Ciise gabay ugaas Mustafaha aamusan ee tan iyo intuu dagaalkan Ciise lagu gumaaday ee uu Mustafa Cagjar iclaamiyey bilo kooban kadib markuu xilka yimid ilaa hadda aan hal mar ka hadlin arrinta galbeedka City. dagaalku hawa socdee maatidan iyo maxasan Ciise ee la soo barakiciyey maxay xukuumadda Mustafa Cagjar dib u dejin ugu samayn lahaday ilaan axmaradii 4 Agoosto 2018 dib baa nagaaday tirida wuxuu Mustafa Cagjar dib u dejin ugu sameeyey miisaaniyad ka badan 290 milyan oo bir iyo dhul uu qoys walba ka siiyey Jigjiga. maxaa si aamusiyey ugaaskii beesha Ciise oo uu arrintan uga hadli layahay ku dhawaad 3 sano oo dadkiisii Canfari gumaadayso maalin walba soona barakicisay. haddii uu ugaaskii hadli waayey muddo 3 sano ku dhow oo uu dalka ummadiisa ka dorbiday gurnada uu ka qaato Mustafa Cagjar maxaa aamusiyey shacabkii beelweynta Ciise ee dhiigga iyo ficilka badnaa? mise dhiiggii tuunbaa lagaga nuugay oo raggii Ciise xiniyaha laga wada baxshay? shacabka Ciise ma aadan allaale oo keli aadaa? aadan Farax iyo Ibraahim Cismaanse waa qolama kolay inay Ciise yihiin maqalay laakiin u malayn mayno inuu dhiig Ciise ku jiro. haddaba marka la eego aamuska ugaaska aadan Farax iyo Ibraahim Cismaan, Mustafa Cagjar uu ku saxsan yahay inuu ciidanka ka soo rarto oo ku bowqalaalo beesha Ciise cadowgooda. wax dib u dejinana uusan u samaynin barakacayaashooda marba haddii kuwii beesha Ciise ka soo jeeday ee dal deegaan iyo guurtida ugu miisaanka cuslaa ay dhadhamo ka darbideen kana naxaynin gumaadka dadkooda lagu hayo maalin walba. wiil beesha Ciise ka soo jeeda oo aan wax ka weydiiyey arrintan ayaa iigu jawaabay, walaalow nafsigoona haya oo annagoo laban oo aan dhib qabin baan dhibaato aan jirin sheeganay. Mustafa Cagjar oo aan lahayn tii hore idiin dhaami oo wuuna xorayna wuu nooga daray dhibka maantana haystana annaga isu leh oo gacmahanaga ku keensanay. safaarada Maraykanka ee fadhigeedu yahay magaalada xarunta u ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa ayaa ardaygeeda Facebook ku soo qortay inay doorashada Itoobiya ka dhacday ay xaaraan ahayd, iyadoo hadalkeedii u qortay sida tan: dimuqraadiyaddu waxay saldhigtaa marka haykalka dowladnimo loo dhan yahay, cadcadaan iyo isla xisaabtanna uu jiro, yahayna mid dadkiisa u jawaabaya. innagoo taas maskaxda ku haynayna, Maraykanku wuxuu waaninayaa dadka Itoobiyaanka ah ee xuquuqdoodii codaynta gutay 21 Juun. si kastaba ha ahaatee, doorashooyinka laftoodu ma aha kor ilaa hoos kuwa caddeeya inay jirto dimuqraadiyad ama isbeddel siyaasadeed oo dhab ah. doorashadii Itoobiya ee 21 Juun waxay dhacday iyadoo beddelkeeda dhanka kale liddi ku ah jiritaanka murugo badan oo xasilooni darro ah oo ay ka mid yihiin isku dhacyada qoomiyadaha iyo colaadaha bulshooyinka wadamada kale oo sii kordhaya, iyo nidaam doorasho oo aysan xor iyo xalaal u ahayn dhammaan shacabka Itoobiya. qaadacada doorashada ee xisbiyada mucaaradka ah, xadayga hogaaminta siyaasadda ee muhiimka ah, iyo rabshadaha ka socda meelo badan oo dalka ka mid ah waxay xaqiijinaysaa baahida loo qabo in loo guuro dadaalo loo dhan yahay oo lagu dhisayo wada hadallo qaran oo ku qotoma hogaaminta habmaamulka Itoobiya, taasoo ilaalinaysa midowga iyo qarannimada dowladnimada, xoojinaysana awaamiirta dastuuriga ah. hadalkan waxaa barteeda ama ardaygeeda Facebooka ku qortay oo aan ka soo xiganay turjumayna safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa.